soo ahaa in ay ku sheegeen cudurka kansarka waad ogtihiin dhakhaatiirtu waxyaalo badan bay sheegaan laakiin dhakhtarkan Etoobiyaanka wuxuu noo sheegay cudurka inuu kansar u ekaa dhuunta calooshana ay qayb dhan dilacsan tahay dhuunta tuubada cunnada inay dilacsan tahay misna ay dhiig tufayso una baahan tahay xaalad degdega in wax looga qabto wakaas been ma sheegay kombiyuutarada waa kuwa dadkii yaqaana qofkii tagi kara cusbitaalka magaciisa wakaas halka ku qoran waa tagi kartaan qof kasta oo baahan cadeyntiisa soo ogaan karaa waalidka dhalayna waa u sheegay hooyo waa la hadlay si naxariisna waa ula hadlay wax kasta waa ku iri afkeeda waxay iga tiri gabadheeda anaa guriga ka ciri maxaad ku daba dhigay ilaahow hadda been sheegay caafimaadka aan maanta halkan ku hadlay allah iga qaadana been sheegay gabadheeda anaa guriga ka ciri bay tiri waa ogahay caqabado badan baa kala kulmay kartid ma soo horstaagi kartid baa lagu yiri runtan ma sheegi kartid hooyaa tahay maanta waxba ku dhahayo waxba ku dhihi maayo waayo hooyo waa hooyo laakiin Soomaaliya waxa idin sheegaya gabadha yarta hadaa caawin lahaydeen iyo hadaa barta uga dhaqaaqi lahaydeenba aniga hadii hooyadeed iyo familigeedu ay raali uga noqdaan inaan caawiyo diyaar baan u ahay anoona bulsho lacagna ka ururin arrinka kale Muniir shalay ayadoo socotay tiri ayadoo socota bay tiri caawi maantana wax kasta cadeynteeda ayadoo haysata ayay familigeeda u tagaysaa waxaana diyaar u ahay wax kasta oo caawimaad iga baahato caqabad kasta ay u noqotay inaan diyaar u noqdo dhammaan Soomaali Maxamed iyo familiga Muniir waxaan u sheegayaa uma baahna